Sadiq Warfaa oo ah siyaasi Soomaaliyeed markii diyaaradda sidii ay ka soo agadhigatay garoonka diyaaradaha ee magaalada Gaalkacyo soo dhaweyn dabadeed waxa uu u soo gudbay degmada Galdogob oo ah halka laga soo doorto. Sadiq Warfaa waa siyaasi Soomaaliyeed oo ay ka muuqato muwaadinimo qoto dheer iyo waliba inuu yahay shakhsi Soomaalinimadu ay ku fogtahay. degmada Galdogob oo halka laga soo doorto ayaa dad aad u fara badan ay ku soo dhaweeyeen waana mid muujinaysa miisaanka uu bulshada ku dhex leeyahay Mr. Warfaa. Sadiq Warfaa oo lagu soo sagootiyay wadanka Mareykanka oo uu ka yimid si guud ayaa dadka Soomaaliyeed ay u soo sagootiyeen. dadkii soo dhaweynta Sadiq Warfaa ka qayb qaatay oo isugu soo baxay banaanka degmada Galdogob wajiyadooda waxaa ka muuqatay baahida ay u qabaan la kulanka Mr. Warfaa iyo soo dhaweyntiisa. Sadiq Warfaa sagootinta loogu soo sameeyay wadanka Mareykanka ee uu ka yimid iyo soo dhaweynta degmada Galdogob magaalada Gaalkacyo iyo guud ahaan gobolka Mudug waxa laga dheehan karaa miisaanka uu ku dhex leeyahay dadka Soomaaliyeed. dhammaan dadkii soo dhaweeyay Mr. Warfaa oo ay ka mid ahaayeen odayaasha dhaqanka, haweenka, maamulka iyo qaybaha kala duwan ee bulshadu waxa ay muujiyeen sida diiran ee ay ugu faraxsan yihiin inuu dalkiisa dib ugu soo laabto isla markaana uu u bareero inuu bulshadiisa u adeego. musharax xildhibaan Sadiq Warfaa waxa ku soo dhawaatay degmada Galdogob waan aragtaa dadka Galdogob sida ay banaanka ugu soo baxeen iyagoo soo dhaweynaya waxaan rajaynaynaa inaad maaragtaa arintaas si fiican u aragtid. Dibaana ku soo dhawow dalkaagii hooyo gurigaagii hooyo gacna furan iyo bogaadin baan ku haynaa. kalsooni waxa kuugu filan inta maanta banaanka kuugu soo baxday. gaadiid iyo dad waa soon markii la seexan lahaa oo dadku nasan lahaa waqtiga qaaliga oo la soo siiyay kalsooni iyo ahmiyad lagu hayo intaasaa kuugu filan. xisaabtan bay ku tahay haddii insha Allah waad ku guuleysanaysaa ayaad ku guuleysatid maskabka aad u socotid xisaabtan bay ku tahay waa ku qiimeynayna ninkii aanu bacadka u dhoobanay rabadaanka masaasuu yeelay iyo alle waa istaahilay ku xisaabtan. Bismillahir Rahmanir Rahiim. halkaan waxaan ku soo dhaweynaynaa xildhibaan Sadiq Xirsi Salaad Warfaa. ku soo dhawow Sadiq, ku soo dhawow dalkaagii deegaankaagii xildhibaana ku soo dhawow. ilaahna waxaan kaaga rajaynaynaa xildhibaannimada aad doonaysid inaad ku guulayso. Allah ku guuleey. farxad weyn oo ah inaanu soo dhaweyno Sadiq Warfaa oo ka socda jaaliyadda Mareykanka oo wadanka adduunka laga jecel yahay. Sadiq sida lagu jecel yahay Soomaaliya ku jeceshahay taariikhii saacid lagu aqoonsaday waxa kamid ah Sadiq lagu aqoonsaday waxa kamid ah marka dhalinta Soomaaliyeed ee Mareykan lagu xirxiray ee la yiraahdo al-shabaab baatihiin sidoo garab istaagay oo ugu hiliyay oo shacabka Soomaaliyeed ka ariga raacaya iyo kan geedka hoostiisa jooga iyo kan dabaqa saaran Soomaaliha dhiig oo qeyraan ay leedahay qiirada Soomaalinimadana ku haynaa. waxaanu nololeeda ku soo dhawaad wadanka Soomaaliya qaasada dawladda Puntland degmada Galdogob. Sadiq waa lagu jecel yahay caalamka iyo ciidda ha ku jeclaadeen waanan ognahay inaad noqonaysid hogaamiyaha siyaasiga ah ee wadanka hagi kara. dadkii soo dhaweeyay Mr. Warfaa oo meel fagaara uu kula hadlayay ayaa waxa uu xaqiijiyay haddii la doorto inuu si daacadnimo ah oo Soomaalinimo ay ku dheehan tahay ugu shaqayn doono bulshada Soomaaliyeed. marka walaalayaal farxad ayay tahay sida sharafta leh oo kalsoonida ku jirto aad igu soo dhaweyseen degmada Galdogob. waxa iga go'an inaan ka shaqeeyo midnimada ummadda Soomaaliyeed. anigu waxaan halkaan u imid inaan waxaan rabaa dadkayga ummadda Soomaaliyeed iyo qoyskayga inaan wax u qabto. waxaan uga soo tagay qurbaha nolol ayaan ku haystay ummadda Soomaaliyeed iyo jaaliyadda Mareykanka ayaan muddo u shaqeynayay anoo aruurin jiray kana shaqeyn jiray danta ummadda Soomaaliyeed. waxa igu kaliftay inaan deegaankayga asalkayga aan ka soo jeedinayo imaado markii aan arkay baahi ka jirta. baahidaas loo baahan yahay in dhammaanteen u wada istaagno. muhiimaddu waxay tahay haddii farkaliga farama dhaqdo gacmo wada jirbax ku gooyaan. waxaan aniga go'an inaan idin adeego وأديت فرصة أسقالك يسيسين النصيب وياش إن عن المثلو إن عن أهان دونه شخصي إذن كده دقيسته. أنا وحنا كيف مودمنا أسقربها ودن كمريكا كليراد ودن كمريكا كليراد هالشيء أيام مهم أيام كسب برتين جوجي مدة بدر أيام جوجي. دولة الشعب كيا إسكله شعب كقولتوا بهالكان جوجي إذن كيا إسكله تذكر درستين إذن كيا حكومة. مهمة وحوي أود إذن كيا إسكله. سلام متقن عمر سمع السوق هنا سلام عمر سمع الله أروريا
walaalayaal muddo dheer ayaa dhibaato ku jirnay xilligii waxaa la gaaray la soo bixi lahaa xilligii waxaa la gaaray Soomaaliya ee dib ummadda mataqaanaa ee u hanan lahayd wax looga baahan yahay mar labaad iyo mar saddexaad isimada qeybaha kala duwan bulshada aad iyo aad idinkaga mahad celinayaa waxaan leeyahay kulligiin hamir dhawaaqa Soomaaliya 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 ilaahay cadowga ajabsho ilaahay cadowga ajabsho midnimada ilaahay keeno ilaahay dib u soo cesho sharafteedii